wararkaynu ka helana gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ku waramayaan in ciidamada cirka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ay saacadii la soo dhaafay duqeymo dhinaca cirka ay ka fuliyeen tuulooyinka Xaraare iyo sidoo kale Canta Malugle oo u dhaxeeya degmooyinka Ragaceelle iyo Biyacade ee gobolka Shabeellaha Dhexe xogaha ayaa intaas ku daraya in duqeyntan oo ah mid aad u culus lala beegsaday fariisimo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaasi ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sidaanka qaranka ee Soomaaliya oo heshay xogta maleeshiyaadkan isku halka ayaa fuliyay hawlgal qorsheysan oo dhinaca cirka ah waxaana wararku ay ku darayeen in halkaasi lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay soo buux dhaafiyay tuulooyinkaasi xogaha aynu ka helina halka ay duqeyntan ka dhacday ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu gubay gaadiid dagaal iyo sidoo kale saldhigyo waaweyn oo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen hase yeeshee ma jirto ilaa haatan ila madax bannaan oo xaqiijin kara tirada rasmiga ah ee maleeshiyaadka lagu dilay hawlgalkaasi ciidamada cirka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka wadeen hawlgallada dhinaca cirka ah kuwaas oo muddo dhowr jeer ah ay duqeymo dhinaca cirka ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana duqeymahaasi lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal in muddo ah ay baadi goobaysay dawladda federaalka Soomaaliya